wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa xaflad u qabatay 36 qof oo macallimiinta dugsiyada barashada baabuurta ah kuwaasi oo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland tababar uga furtay magaalada Hargeysa. Ugu horeyn munaasabadan waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda liisamada iyo agaasimaha waaxda gaadiidka, waxaana sheegeen in munaasabadan ay ka qalin jabiyeen 36 qof oo ka kala socday 14 iskuul ee ka dhisan dhammaan gobolada dalka. haddii maanta la tiriyay markaa iskuulkii waxa loo baahan yahay inuu ka soo baxo darawal tayo leh. awal hore waxaad ogeedeen magaalooyinka dalka waaweyn in la oran jiray khamiistii jibcaha magaalada laga saar aynu gacanta ku soo fariisiyay. marka waxaan qabaa maanta mar haddii wasaaradda aqoonsatay aqooneedii tartay wasaaraddu waxay sameysay iyadoo oo ka duuleysa sidii loo heli lahaa darawal dhameystiran inay iskuulada laftigooda la tayeeyo certificate-na la siiyo oo iskuulo maxaa la yiraahdaa sharciya oo aqoon leh ay wadanka ka jiraan. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Mudane Axmed Abubakar Maxamed ayaa sheegay in macallimiinta dhamaantood lagu tababaray shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah. in dadka qaar markaa iska sameysteen markaa iskuul iska sameysteen isagoon soo marin markaa hay'ad ama cid ka daba gasha ama cid ruqsad siisa. macallimiintan maanta waxa lagu tababaray markaa dhammaan shuruucda wadamarista nabadgelyada wadooyinka iyo sida markaa ardayga loo tababari karo loo bari karo markaa sida gaariga loo wado iyo xirfadda gaariga lagu wado. dugsiyada markaa maanta laga bilaabo registration baa loo sameeyaa, ruqsad baa la siin doonaa. dugsiga haysta macallimiinta la tababaray xirfadda leh ayn baa noqon doona dugsi loo ogol yahay inuu bixiyo barashada xirfadda wadista baabuurta. agaasimaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta xogayaha fulinta dawladda hoose ee Hargeysa xildhibaan Xirsi Cabdilaahi taliye ku-xigeenka ciidamada nabadgelyada wadooyinka Master Abi iyo Dr. Naciimo oo ah agaasimaha dugsiga barashada caafimaadka ayaa dhamaantood waxa ay mas'uuliyiintani sheegeen in tababarkani uu muhiim u yahay shacabka Soomaaliland gaar ahaan wadayaasha gaadiidka. Yaasmiin iyo Cabdirasaaq oo kamid ahaa macallimiinta maanta xafladda loo qabtay ayaa sharaxay sidii ay uga faa'iideen muddadii halkan tababarku uga socday. halka haddaynu qaloocino walaalkeen ka bilowno dhibaatadaasi wadankeena oo dhan bay mas'uul ka tahay. halkan fadhida ee joogta intay daawan doonta waxaan idin leeyahay dalku inagu ina sugaya haddaynu nahay badbaadada nabadgelyada wadooyinka. macallimiinta waxaan leeyahay sharciga la idin baray fuliya madaxdana waxaan leeyahay sharciga macallimiintu barteen ala dhaqan geliyo. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Ibraahin Ataash waxa uu sheegay guulihii iyo horumarkii wasaaraddu ka gaadhay dhanka horumarinta adeega bulshada ay wasaaraddu u xil saaran tahay. wasiir Cabdirasaaq Ataash waxa uu bulshada reer Soomaaliland ugu bushaareeyay in aanu jiri doonin qof muwaadina oo haliisan wax ka badan sita taasina bedelkeeda ay wasaaraddu u fududeysay wixii macluumaada ee qofka wadaha gaadiidka ah haliisan la isugu geeyay. waxaan jeclahay inaan runtii maanta aan hoosta ka xariiqo sidaan ugu faraxsanahay mid ka mid ah goolashii koowaad ee aan dhignay markii aan shaqada nimid oo ahaa inaan wax ka bedelno tayada baabuur wadista ama darawallada dalkeena. darawal marka la leeyahay maaha darawal cid u shaqeeya, waa darawal waa qof kasta. aniga ka mid ah gaarigayga wata. marka nidaamka gaari wadista ee dalkeena inaynu wax ka bedelno oo tayeyno inay maanta tallaabadii koowaad qalin jabinteedii aynu maanta u fadhino. kan waa mid ka mid ah gradada leysamada aynu bixino. leysan walba waxbuu ka turjumaa. leysan walba gaadiid gaara baa lagu wadan karaya. macnaheedu waxa weeyaan qofka waxaa laga rabaa inuu sito 5-6 leysan oo kala duwan. waxaan maanta Soomaaliland ugu bishaareynayaa inaynu joojinay arrinta noocaasa. qofka reer Soomaaliland wuxuu haysan doonaa hal leysan oo kaasoo kala geesta kale wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waxa uu shaaciyay in muwaadiniinta gaadiidleyda ah lagu ganaaxi doono qof kasta oo wada ah isla markaana aan beel ka xidhnayn. sidaasi darteed wasiirku waxa uu sheegay in muddo bil ah loo qaban doono dhammaan gaadiidleyda dalka. gabagabadii munaasabadan waxaa abaalmarino iyo shahaadooyin la guddoonsiiyey macallimiintii muddadu halkan tababarka uga socday, taasi oo cadeynaysa in ay maanta laga bilaabo ay yihiin barayaal gaadiidka ku tababari doona sida loo wado bulshada reer Soomaaliland.